يعني waxaa ahay qof weligiis xirxiran dadkan la hadla jecleen markii dambe heer waxaa gaaray inaan maaragtay wax qoro dareenkaani dareemay inaan qoro kadib markaa qoray qofaa wuxuu dhahay xataa dareenkaani dadka u soo bandhigtid maxaa kalifay ma qiso yar oo kugu dhacday miyaa jirta mise jacayl buu ahaa mise muxuu ahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaalkiin maxamed fadli barnaamijyadeeda aadka u xiisaha badnaa kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo kun jeerba in badan aan salaamay in qof kastoo i daawanayo biidin illaah maanta ilaahay hadduu suurta geliyo aan ka rajeynayo inuu barnaamijka si fiican ugu dhamaado maxaan nii wadaa barnaamijyadii hore aan u samayn jiray wax yar oo barnaamij ka duwan maantana waxaa marti ii ah nin la yiraahdo Daawudiin Axmed ama Diin Axmed loo aqaano walaalkeen waaye ilaahay hadduu ku roon yahay muxuu sameeyaa barnaamijyada motivation spoken words way fiican tahay Soomaali haddaan nahay in talentka aan soo bandhigno ama qof kastaba talentkiisa inuusan qarsanin ama uu waxaysanin qof kasto oo talent leh oo anaga naga mid ah oo talentkaas laftirkiisana haddana u adeegsanayo wax fiican oo khayr ah ama bulshada ugu adeegayo inaan soo qaato ayaan nila jeclaystay qof kasto i daawanayo laga yaabaa marka shacabka i daawanayo dadkayga in intiina aad taqaanaan wajigan ama hore u aragteen inta aanan aqoonin channelkiisa asaga iska warrami doona insha Allah waa soo boqon doontiin laakiin intaas ka hore Axmed Diin Axmed ku soo dhawo fadli waa mahadsan tahay waxayna ii tahay farxad inaan maaragtay studioga maanta aan marti kugu noqdo studiogan sharafta badan oo maaragtay dhalinyaro badan lagu caawiyo waan ku faraxsanahay aad iyo aad mar labaad soo dhawo aan ku leeyahay saaxiib sare waayo bulshada run ahaantii wax weyn u haysaa waayo luqadda motivationka ama spoken wordska uu ku sameeyo waa luqad Englishka waaye wax saacideynaya bulshadeena waaye haddii noqoto inay luqadda iska saxaan laakiin intaas ka hor maxaa rabay inaan weydiiyo niyahow maxaa kugu dhaliyay inaad ku biirtid motivation ama spoken words والله taas waa mid saaid ma aragtay weligii aan u jeclay yani waxa ahay qof weligiis xirxiran dadkan la hadla jecleen markii dambe heer waxaa gaaray inaan maaragtay wax qoro dareenkaani dareemay inaan qoro kadib markaa qoray qofaa wuxuu dhahay xataa dareenkaani dadka u soo bandhigtid yani dad badan waxa uu noqonaysaa cod soo markaani marka Diin Axmed marka ahay badanaa waxa isku wacaa the voice of the voiceless codka codka lahayn soo fahmin marka yani maanta camal marka spoken word soo hagaajiyo waxa laga yaabaa qof oo mataqaana spoken word kaasi dareemayo oo ku relate gareenayo marka that's the main reason ma aragtay u jeclaystina spoken word hagaajiyo sababka marka muxuu ahaa maxaa kalifay ma qiso yar oo kugu dhacday miyaa jirta mise jacayl buu ahaa mise muxuu ahaa sababka yani waxay ahayd qoraal qof walba qora aad aragtid xanuun buu soo maray aniga marka qoraalka bilaabi jireen waxa ahay qof ma aragtay aamusan oo sheegis dabcan laga yaabaa 60% inuu jacayl u jiray ma aragtay heartbreak u jiray heartbreak-yada qori jiray soo kadibna markii heartbreak-yada qori jiray waxyaalo badan bulshada si dhex galay arrimo badan si dhex galay waxa ogaa dad badan dhibaataysan qof la hadlay u baahan yihiin ma sha Allah wallahi aadan kaaga madcelinaya gabya ala dhihi karaa si ahaan waayo gabayga qofka ninka gabyo waxba ku xambaaro inuu wax ka qoro waxba ku dhalinayo aad baan kaaga madcelinaya la kulankaaga iyo maanta saad igu soo boqotay ma sha Allah talent kaagana muhiim bay dadku u tahay marka meel lagaaga la soo xiriiro ama platform oo social media Instagram ka waxay la soo xiriiri kartaan Diin Axmed Maxamed YouTube-keygana brother Diin Axmed mid kale nigi ilowna waxa qoray buugaan ilaahay jiro oo arrimo badan oo bulshada kamid taabanayo buugaas hadaa jeclaysatid in akhrisatidna waxaad igala soo xiriiri kartaa Instagram account-keyga Diin Axmed Maxamed ma sha Allah buugaas marka magaciisa muxuu ahaa Heart Unchained qalbigii furmay ma sha Allah maxaan u maleynayaa buugaas ina soo saartay buugaas asxaabta qofkii u baahan waa taqaaniin meesha nagala soo xiriiraysiin qofkii u baahan buugaas Heart Unchained muxuu nagala soo xiriiri ka doonaa biidinillah numberkiisa dad badan way hayaan waxaad nagala soo xiriiri kartiin numberka ah 0714666419 0714666419 walaalkeen halii soo dhaweeyay insha Allah